وفد hogaaminaya Professor Ahmed Ismail Samatar isla markaasina uu ku helinaya wasiir ku-xigeenka warfaafinta iyo wacyigelinta Somaliland ujeedada wafdigan ayaa waxa ay ku qotantay si uu soo indheeyay Professor Ahmed Ismail Samatar xaaladda nololeed ee ku nool yihiin guud ahaan dadka ku dhaqan gobolka Nisalel markii uu soo gaaray degmada Saylac wafdigu hogaaminaya Professor Ahmed Ismail Samatar ayaa waxa isagoo halkaas xafiiskiisa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha dawladda hoose degmada Saylac Hussein Idla Barkhalle iyo sidoo kale xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Saylac isagoo uga warbixiyay marxaladda haatan ay ku sugan tahay degmada Saylac يو دقمدي سيلع قديم كحيد سيلع عدو بويا أنا أدون كدوشي سكونو يربو يعني سيلع وأنا صور نحمرتين ويا طارقتين ويا طارقتين بروفيسور روح على جاي بعفرية تون جميع صدق صون ولا مصمم صدق تون كحيد واحد بدنا نسكب الدليل واحد بدنا هالكيسي متهاجين حتى نسكوا رمنا واحد سكب الدليل بروفيسور نوع قول بدلنا السنة قول بحنا قبل نص ساعة عندكم توقع سمعنا أو توس لبضي يكون يسد حياتهم كيد القرن صوم مريض بري إلا قلبه ما أنت نبغى عن سيدة كي وصوم مريض هذا حالة يكون نوريين يدب إنه ولا صار شيء كيستو فرصنا ضد بدينا ندير سكو أرجنا أدي البيت واحد لقى مبسوطه ويقول رئيسي قضدي أن ملك لا أنا أقول عننا إنه كان الموجود سمعي هو كلون لقى سوق قبتي بط وقت الدول لقى سوق قبتي سي عافي ما بدل للو قشقي وحكى عن لو قدرين انتوا اكثر لو اجاجي دانو كلون عين كاسه كمان كلين سومالي لاند انت كسو نقولي الا لبكون يا صدقتو بربرنا دحو كلون عين كاسه كمان ننعسه يوم بكون نقوم واي ميل لو جعليه صح يا صح oo de meel lagu jecel yahay oo jacaylka caynkaas hadii lagu tusay waxa doonaysa inaad dib ugu noqoto oo aanay dhamaande ayaa doonaysa taas marka iyadee mahadnaq aad ku celiso dadkii oo aanay hanuun tixiro maalin daayo deetana la iska iloobay aanay iyagina inaan ka waraysto de baahiyoodu waxay yihiin oo baahiyoodu deetana la istabadhigo mar qura la qaban karo waxa la istabadhigo to ugu daran to ku xigta sida looga iyadoo cilmiyeysan loo fahmo deetana inaan aniguna markaa fariintaa ka soo qaadon xisbigii kulmiyeen ku jiray u geeyo iyagana aan u sii taataabtoon carabka maxaan ku raacay dibnaha u sii qoyo campaign-kii weli muu bilaabmine xisbiga kulmiye waqtiga cusub ee soo socda inuu dadka ku qanciyo waxa uu soo wada ee uu doonayo inuu wax ka qabso barnaamij taana inaan dandansiiyo laakiin buhdeeda waxa loo soo noqon doonaa wixii September ka dambeysay sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay Professor Ahmed Ismail Samatar dariiqa u dhaxaya tuulada Ashacado iyo tuulada Looyacado ee ku taala xuduudda u dhaxaysa wadanka Djibouti iyo Somaliland ku dhawaad 100 iska rogooyin oo iyagu halkaas ka gura ciida inta u dhaxaysa tuulada Ashacado iyo magaalada Looyacado isla markaasina iska rogooyinkaasi ay burburiyeen dariiqii adeegsan jireen baabuurta u kala gooshta Somaliland iyo wadanka Djibouti isla markaasina in badan ay ka cabanayeen dadka ku dhaqan deegaankaasi galbeedka waxyaabaha anigu aan ku arkay wareegayga shayga ugu horeeyay markiiba indhahayga qabta jirkaygana challenge ku noqdo waxa weeye wada xumada dhulka taal Looyacado mar baan ka noqon kar waayo dhul ciida laga qodo baa la yiri oo laga qaato Djibouti iyo dhulka la geeyo halkaas markaad eegto ilaa magaalada Looyacado wadadeeda qalbigii baan naga jabay waan daalnay waan maxaan ku raayay waa aad iyo aad baan anigu ugu xumaanay meel la mar ma ahde waxaad moodaabadee dhulka in dagaal lagula jiro oo environmentkii dabeecadii wadadaas baabuurtu marayeen oo si xun loogu takrifalay oo dee foolxumadeeda iyo siday tahay aad yaabayso waa wax laga naxaweeyey waa inay jiraan ummadan Somaliland dadka madaxda u yihiin arrimaha caynkaas inay ka warhayaan waayo waa laba amurood mid ciidiyo la iska qaadanaya la yiri oo wax shaqada xitaa aan laga helay iska daacasho dawladii wax ka soo gasho talabaad wadadii burburtay oo baabuurada marayaan dan ka lahayn la burburinayo marka ay dabeecadii degmada ay baabiinayso waa waddankiiba marka dagaal lagula jiray marka dadkii madaxda ahaa xagee ku maqan yihiin وعلى أحمد ديريه على دقدرول تي في عالمي SAB TV مقالة سيلع.